السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أساسا ميديا halkani waxaan kasoo jeedinayaa announcing ama ogeysiis taariikhdu markay tahay 29ka bisha lixaad waxaa la qaban doonaa Somali Independent Day waxaana lagu qaban doonaa magaalada Rochester ee gobolka Minnesota gaar ahaan RCCT ama howlka weyn oo salaada ciida lagu tukado munaasabada qiimaha iyo qaayaha mudan waxaa inoo faahfaahin doona ama inoo sharaxi doona qaabka xafladda iyo sida ay u dhici doonto gudoomiyaha magaalada Rochester ee gobolka Minnesota mudane Cumar Yuusuf Nuur mudane gudoomiye kusoo dhawaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان بهويدا Soomaaliyeed ee ku nool Rochester iyo ereydana ku dhow waxaan marka hore waxaan baleynayaa sanad guridii 64aad ee maalintii xurriyadda la qaatay 26 Juun gobolada waqooyi ee dalkeena hooyo waxaan leeyahay hambaliyo meel kastoo aad Soomaali joogtaan waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago ogeysiis muhiim ah maadaama aan nahay jaaliyad ballaaran ee ku nool gobolka Minnesota magaalada Rochester sanadkii hore in uu dabaaldegno sanad guridii iyo kasoo wareegtay maalintii xurriyadda dalka iyo maalintii midowga 26 Juun iyo 1 Luulyo si wada jir ayaan ugu qaban doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo maalinta Sabtiga ah ee 29ka bisha Juun saacada laga bilaabo 5 galabnimo ilaa 9 PM baaldegaas weyn wuxuu ka dhici doonaa RCTC-da meeshii aan ku dukanay ciida ama Sports Center-ka ama Field House u taqaanaan إن شاء الله وحنا كسو قيب قلي دون أقوي عنه وهي أرجع أو سومالي هو وين وبرد دون أنا يرى ده يرى هل كان كورتي تعرض دي وينات سومالي فعوينات يحرية دي لبكي لقى سومري وحماش أتركوا عشوني مداحة الدجمة أن كنا والله رجستر هير دجمو هير كاوني هير استيد أو مداحة لدورته مركز سيد أدرتيت وحنو باقي دمان بهوين تسوماليات لأن يرى ماموين كقضياسة وحكرتك iyo caruurtaba in la keeno laga soo qayb galo waxa meesha u qabanay waa meel aad u ballaaran waxaan ugu talagalnay inaan macnaha balse fiican bahweynta Soomaaliyeed u dabaaldegto farxadaasna aan la qaybsano Soomaali weynta meel kastoo ay joogaan ujeedaduna waxay tahay marka in dadkan odayaasha ah ee taariikhda haayo dhalinyarada yarka ay u sii gudbiyaan ay bartaan waxaa kaloo muhiim ah ayadana in dadkan la degan aan barno dhaqankeena suuban iyo waxdarayhi iyo dhibkaan u soo marnay halganka ay xorriyadii iyo dhibka loo soo maray inay ogaadaan inaan leenahay July 4th ay u dabaaldegaan oo kale in anaga aan leenahay marka insha Allah waxaan ka codsanayaa dhammaan bahweynta Soomaaliyeed inay maalintaas nagala soo qayb galaan farxadda aan la wadaagno waxaan casuuno imaan doono fanaaniin aad iyo aad dhalinyaradu jecel yihiin iyo kooxihii oo dhaqanka ciyaari doono reer bulus ah oo ayagana insha Allah ciyaaraha kala duwanaa ee laga dheeli jiray Soomaaliya gees ayagana soo bandhigi doono فنانين أنا يرضى وقعدوا هذه هو قرامي ها يوحي ودني يدا يحتاج حسبة مركب وحنا نقول هاي بلنتين هو معلن سبت جاء جون إتحاد الوطني سجالك ساعات عشان تقلل إلى 6 إلى 9 PM حلون RCTC ده وحنا نكرر جينا إن شاء الله ونقدر سوق يبغى دونتان فرحت داسن على وذاك دونا دمان بهوين الصوماليات مركب عنتر محلي عم بليو لحيل لبعتني جون ومركب هو الرئيسي على الصوماليات اللي جتاعه كيجا الصوماليات gobolada waqooyi ee Soomaaliland ee dalkeena waxaan leenahay hambaliyo insha Allah waxaan markaas ku qabanaynaa maadaama aan awoodin in laba jeer baadar la qabto hal xaba ayaan ka dhigaynaa maalintii midnimada oo ahayd 1 Luulyo lamana gaarin markaas sidaa darteed 1 Luulyo waxaan ku soo aaday sida la socota maalin Isniin ah waa maalin shaqo sidaa darteed Sabtiga ayaan ka dhiganay si fursad loo siiyo dhalinyarada iyo shaqaalahaba si fiican loo wada ciido loo wada dabaaldego balanteena waa Sabtiga iyo RCTC Rochester iyo kasoo qayb gal wacan aad baan idin salaamayaa marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma santiin waa Cumar Yuusuf Nuur madaxayada Somali American Social Service Association Rochester wabillahi tawfiiq aad iyo aad ayuu mahadsantahay gudoomiye sida sharafta iyo qiimaha badan aad halkaani announcing ama qaabka xafladda u dhaceysay inagu soo jeedisay dhammaan waxaan ugu baaqaynaa dhinaca kale ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan sida haweenka caruurta dhalinyarada culba diinka iyo siyaasiyiinta inay ka soo qayb galaan xafladda qiimaha iyo qaayaha mudan ka soo qayb galkiina muhiim ay inoo tahay wixii faahfaahin waxaad kala socon doontaan Sasa Media.